بعد السلام أنا ما أنت هالكان هذا هي ما فرّ كلية وحان ربا إنا مو مهد نقوه لمان بلشوين تا غير جبلين إيو مسؤوليين تا دولة جولات كجبلين إيو مرت شرف تكلمة ما أنت عن عزومني أو مجلس وقي بشيء حفلة دان لغدا هفورايو كالفادقي لباد قولها وكيلة دولة جولات كجبلين مركا دمان وحان إذن لنا هاي أنت نسوا جيبتي أد بدو محسنتين شرف بدن باندين هاينا الله هيدين شرفه أد بدو محسنتين إن شاء الله تعالى وحان ربع هذا الك ما أنت هدانا هاي بارلمان كدولة جولات كجبلين النجا كلية وحان لجبون سو دوين يوم هدعين أد بدو محسنتين هذا وحان كسو دوين يا مدحوينها دولة جولات كجبلين سلام كبعدي وحشرفوا إني أمانته إنا أنفرنا كالفرلي اللباد البرلمان كي اللباد دولة جولات كجبلان وأن لا هاي برلمان كجبلان والله في دور دولة نمدا شريتانك مد نمدا يا نوع ما أنت دولة نمدا كسرعانو waxay mudan yihiin ammaan iyo sharaf
sababtoo ah waa dad mutadawiciina oo waxa ay marayaan iyo xaaladda ay ku shaqaynayaan iyo waddankay ka shaqaynayaan intaba garanaya oo aan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada iyo guddoonkooduba waxaan idinkaga mahadcelinayaa xaaladda aad ku jirtaan qiimaynta ay idiin leedahay si aad u qadarinaysaan sida aad baahidiinna iyo waxaad qabtaan oo dhan uga hormarinaysaan iyo sida weliba mararka qaarkood gabdho iyo wiilalba aan garanayo xilliyo adag oo dagaallo ay ka socdaan meelo aad magaalada Kismaayo uga fogfog aan ka soo celinayna iyagoo le dagaalkaan gelaynaa oo lahayn xildhibaanaad tihiin idinku soo noqda aad baan idinkaga mahadcelinaya waxaan leeyahay Jubbaland aad bay u nasiib badan tahay waxay ku nasiib badan tahay ilaahay wuxuu siiyey xildhibaano iyo guddoon iyo baarlamaan garanaya waddanka joogay xaaladda la soo maray garanaya duruufta hortaa la garanaya oo intaas oo dhan iyagoo garanaya maanta dagaalkii ku jiro kulligood wada ciidana mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahadcelinaya dowlad goboleedka Jubbaland waad garanaysaa jirinta aasaaskiisii ugu horreeyey markii la aasaasayay waxaanu ku soo bilownay dib u heshiisiin marka laga soo tago dagaalkii shabaabka dib u heshiisiintaasi waxay nagu qaadatay waqti aada u dheer iyadoo ilaa haddaba ay socoto waxaanu qof walba kaga daba tagnay aabba iyo walaal oo qof walba gurigiisa aan ugu tagnay oo bariyey oo aan garanayn war waxaan leenahay aan sida aragno waxaan ka mahadcelinayaa qof kasta oo Soomaaliya qofka markaad walaalo tiraahdo wuxuu garanayaa waxa aad ugu yeelaysaa waxay tahay iyo walaalo macnaheedu waxay tahay waa dad u bisil reer Jubbaland oo garan karaya waxay isu yihiin taasaa waxay keentay qof kasta oo wax tabanayo gurigiisa loogu tagay inuu maanta intuu isu yimaado maanta waxaan dhisannay inuu garanayo intii maamulkani uu jiray dib u heshiisiinta marka laga soo tago wax badan baan la hor yaallay oo ay ahayd wax ka qabashadeeda iyo sida la yeelay mar walba inaan ka shaqeyno waxaan aad isugu daynay dagaalka shabaabka inaanan joojinin oo aan ka xoreyno deegaanada maqan oo aan isku daynay inaan kuwa jooga amnigooda sugo maanta deegaanada shabaabka ka horta ahaa marka laga rabo inta hadda dowladdu ay qasayso oo kusoo dari doono waa meelaha ugu aaminsan meelaha shabaabka laga xoreeyo maxaana sidaa yeelaya ciidankii iyo shacabkii iyo mas-uuliyiintii baa ka wada shaqaynaya xildhibaanku waa askari oo wasiirku waa askari oo hooyadu waa askariyeed oo odayga dhaqanku waa askari oo gabadha makhaayadda joogtaa waa askari oo dhallinyaradu waa ciidan oo qof waliba wuxuu ka digayaa oo sheegayaa cadaawadda iyo dhibaatada manaxayaasha ay u geysanayaan taasi waxay keentay amniga Jubbaland inuu noqdo deegaanada xorta ah meelaha ugu muhiimsan Soomaaliya maanta waxaan ka bilownay meelaha qaarkood meel walba meel dowladii ugu horreysay iyo waxbaa jiray zero ma ayna jirin dhismo dowladeed iyo qaab dowladeed iyo wax suuro dowladeed mid doonale waxaanu samaynay inaan bal ku dadaalo war bal dowladnimadu maxay ka bilaabataa ma aha Soomaaliya burburkeedii inay burbureen keliya dadku ay dhammaadeen dhismihii iyo cuquushii iyo waxa lagu way baabeen inaan isku dayno hay'adkii dowladnimo si aan loo helo bal meelihii lagu shaqayn lahaa oo aan isku dayno maanta aan garanayn magaalada madaxda ku meel gaarka Jubbaland hay'ad walba oo dowladdu ay leedahay inay maanta leedahay deegaan iyo xafiis ay ku shaqayso oo waliba aad u qurux badan oo meel walba ay lahayn iyo kuwa marti iyo meel loo dego iyo meel dadka mudnaanta u leh ay isdejiyaan intaba waxaan ka shaqaynay inaan midayno dhaqaalaha oo hadda qaybtiisa ugu dambeysay aan ku jiro iyadoo aan ku ammaanayo wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda Jubbaland sida hufnaanta ay isku dayeen oo maanta dhaqaalaha ka soo gala ee meeshaan aan joogno hadda ka jira qof walba haddii la siiyo baasweerka uu ku gelayo oo garan karayo processku sida uu socdo iyo waxa baxaya iyo waxa soo galay sideeyay waxaan ka shaqaynay inaan qabanno
sharciyeyntii dhulka waxa Soomaaliya dhibaatada ugu badan ee ka jira wuxuu yahay sabab looga jirtay damanyaal milishiyaal dawladdu way waxaysatay inta dawladdu burburtay inta ka waxaysan baa ka duwan dhibka Soomaaliya ugu badan wuxuu haystaa oo ka dhacay dhulku ka taagay marka geeska u sheegay ilaa ka hooseeya ka bilow taa waxay noo saamaxday inaan raadino yaa aqoon u leh oo shirkado keeno oo aan ka shaqeyno bal inaan dhulkii iyo deegaanadii iyo mulkiyadii iyo intii baan dib ugu noqon oo haddaan maanta kismaayadan aan joogno soo qaadno markaad sharciga dhulka hadasho waxaa lagu leeyahay mid Mombasa jooga buuggii haya iyo mid Roomo jooga yaa hebel baa la soo weydiiyey intii kalena Cabdirashiid iyo wax kale wada gashay taas waxay keentay inaan maanta ku faanayno magaaladan aan joognay ka bilowday la xidhay ringa roor lagu xidhay naqshadeedii hore lana sharciyeynayo dadkiina sharci la aamini karo dayn uu qaadan karo bangiyo kula tacaamuli karo loo sameeyo qof waliba maanta uu garanayo hantida uu leeyahay iyo intay laagtahay meesha uu socoto waxaanu ku guuleysanay qaxooti aad u tiro badan gobolkani wuxuu ahaa 80% qaxootiga Kenya u barakacay meeshay ka baxaan gobolkan waxaa guul noo ahayd inaanu diyaarino oo aan dejino qaxooti badan oo barakacayaal ah inay maanta intay soo noqdaan guryo loo dhisay shaqo abuur loo sameeyo iyaduna waxay noo tahay shay guul ah oo aan leeyahay maanta waxtar bay idin tahay reer Jubbaland waxay bari uga tagi doonaan ayay noqonaysaa waxaan damacsanahay qorshaha mustaqbalka Jubbaland inaan xoreyno deegaanka naga maqan shabaabka gacanta ku hayo oo ay ugu horeyso caasimadii dawlad goboleedka lahayd oo aan isu furno deegaanada Jubbaland inay isu socdaan iyadoo aad garanaysaan culayska ay leedahay Jubbaland ama shabaab su'aal baa isweydiinay maxaa culayska ugu badan ee shabaabka saaray Jubbaland maxay ku doorteen qof walba oo dagaal raba inuu galo oo jabhadeynaya meesha uu Soomaaliya ka gali lahaa waa iyada istaraatiijiyan oo maxay tahay istaraatiijiyadu waa mid jabhaduhu waxay ku noolaadaan dad kala duwan oo kala hayba oo Soomaali isugu yimaada oo isku diri karaan waxaad garanaysaan qaacidada aynu ka dhaxalay nimankii gumaystayaasha ah waxa la yiraahdaa divide and rule ama farriq tasud qaybi oo xukun in macnuhu uu yahay dadkan mujtamacan Soomaalida kala duwan see loo xukumi karaa waxa loo xukumi karaa loogu dhaxnoolaan karaa in la isku diro oo reeq quraco kaalaya reeq qansaxo kaalaya reeq gumar maxay yiraahdeen waxa lagala dagaalamaya inay inta noqoto taasaa asal way u saamaxaysaa markaa midaasi cadow inay u noqoto base oo maanta oo dhan ay qabaayilka dhexdooda ka shaqeeyaan asbaabahaas oo dhan waxay noqotay Jubbaland inay noqoto madaxa shabaabku meesha yaalaan taas daraadeed waxaan mar walba ugu soo celinaa war dagaalka shabaabka aan galo war nala gala war yaana raacaya oo aan raadinayna cidii nala gali lahayd hawsha nagala qayb qaadan lahayd waxaan ka shaqeynaynay daadejinta maamulka waa saddex marxaladood saddex level ba maamulka dawladnimo ee federaalka ee Soomaaliya uu yahay levelka dawladda federaalka heer state iyo kii councilada dawladaha hoose waxaan doonaynaa isxaqaashadu si ay u yaraato oo maanta degmada ayna u oranay dhiisiga loo soo bedelay waa mid xun ama kana inay meel walba yeelato dawladihii hoose oo ay gudoomiyaha iyo maayarka iyo xafiisyada kale kulli dawladda state-ku waxay ku yeelanaysaa oo kaliya waxay noqonaysaa laamaha amniga inay noqoto wax iyagu ka soo baxa oo heer county ah ama heer dawladaha hoose ah oo taana aan doonayno inaan hadda iyadoo barnaamijkaasi mar hore uu dib looga dhacay inaan hadda dhammaystirno tijaabada mashruucaas aan bilownaha degmooyinka ugu horeeyo sanadka bilowgiisa insha Allah inay naga dhamaato inaan dhaadhicino oo deegaanadu aynan soo cabanin oo aynan maamulka caban sababtoo qofku dadkii soo dhistay markay la joogaan waxay garanayaan qofkaas iyo iyaga waxa ka dhaxeeyo qofkana uu garanayaa laakiin haday noqoto warqad baa laga soo qoray wasaaradda arrimaha gudaha iyo hebel baa la keenay
dee hebelkii habeenkii uu la soo hadli karaayo Sheekh Xuseen Furre isugu sheegi karaa marka daadejinta maamulku waxay noo tahay qayb priority noo ah waxaa kaloo noo weheliya midaynta dhaqaalaha oo aan doonayno accountiga single treasury accountiga ka furan maanta Kismaayo ee wasaaradda maaliyadda in degmo walba iyo tuulo walba shilinka baxaya iyo dhaqaalaha soo galaya ka baxayaaba halkaa xisaab inuu maro waa qorshaha noogu waxaysan waxaan rabaa dhammaan inaan u mahad celiyo bulshada reer Jubbaland midnimadooda isku duubnidooda dadka hadda halkan ka hadlay waxay ka hadlayeen iyo waxa ay ka shaqeynayaan iyo wanaaga Soomaalinimadu ku jirto oo mar walba lagu tilmaamo reer Jubbaland inay yihiin dadka ugu Soomaalisan maxaa keenaya Soomaali oo dhan baa kuma kala maqlin jareer iyo jile baajuun iyo baantu iyo mid kale Soomaali qabaa'ilkeeda qurac iyo qasax iyo garas isku wada daro Soomaali baan ka koobanahay taas daraadeed baa waxa asal midnimada maanta aynu ku wada fadhinaay aan uga mahad celinayaa shacabka iskale waxa keenay ma aha hoggaan ma aha baarlamaan ma aha ciidan waxa iskale arrintaas sameynaya waa shacabka iyaga iskale maanta qofku guriga uu ka soo tooso waxa uu yahay qof waliba hadday hooyo dhib badan oo habeenkii calaacasha aabba habeenkii qabiil iyo wax kale uga sheekeeya walaal wax isku dira mujtamaca hadduu dad noocaas ku jiri lahaayeen maanta wanaagaan haysanno ma inaan haysanin waan geli doonaa dhibaatooyinka kale ee Jubbaland ka jira iyo waxa lagu hayo waxaan rabaa inaan ka hadlo dowladda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa shalay dowladda federaalka ahayd markii 2012 la dhisay waxay aad ugu dadaashay bacda shida wa tacab inay samayso isteediyadii la dhammaystiro oo ficlanna way ku guulaysatay oo nidaamkii federaalka uu hirgalo oo deyn cafiska laga hadlo oo resource sharing laga hadlo oo physical federalism laga hadlo oo amniga laga hadlo oo garanaysaan marxaladda la gaaray inay ahayd in markii ay doorashadu dhacaysay 2016 qofku intuu gaarigiisa keligii ka haysto jawaan intuu tago soo noqonayo waddanku uu xor u lahaa inta badan dowladdana hadda timid maxaa soo kordhay maxaa isbedelay waxaa jira dowladda federaalka ah ma garanaysa marxaladihii waddankan uu soo maray madaxda maanta meesha joogtay ma garanayaan waddankani dhibaatada laga soo maray iyo meesha joogo shalay iyadoo waddanka xaaladdu degan tahay bay ka tageen habartay baa lagu baxay waa la soo noqday waxaa lagu yidhi sidaas waxaan aad u qariibsanayaa waxaa la baabi'iyey dhammaan institutionadii dowladdu ay lahayd waxaa lagu xadgudbay dastuurkii waxaa shaqadiisii waayey baarlamaankii waxaa shaqadiisii waayey garsoorkii iyo sharcigu inuu sameeyo waxaa faragelin lagu sameeyey doorashooyinkii dowlad goboleedyada waxaa dib loo burburiyey systemkii dowladnimo ee Soomaaliya dowlad goboleedyadii iyo dadkii tacabka lagu soo dhisay wixii la dhisay ee waxay noqotay in dib loo wada burburiyo maxaa loo burburinaya maslaxada iyadu sidan ay ku jirtaa sidan ay yeelay sidan ay ku jirtaa sidan ay yeelay Jubbaland markaan u soo noqdo markaan iyo dhibaatooyinka dowladdu ay ka geysatay waxaa ka horeysay dowlad goboleedyadii ka horeeyay nin walba in la yiraahdo sidaa iyo saasaan dhama yeelaysaa aw shariifo mafado ayay iska socdo ama in qaado ama si kale aan ku yeelayna taasi waxay gaadhay Puntland ninkii laga geystay dadkii lagu laayay koonfur galbeed galmudug waxa maanta ka jira Hirshabeelle iyo waxa lagu hayo torture gareynta waxaasoo dhan markii laga soo tago Jubbaland waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saaray ana ugu badan la qaado sida yeel warhay ra'yi male ma ra'yi mali warkii Bush 11 September ama anagana raaca macadowgana noqo intaasay noqotay jawaabta la siinay wiilasha siinayna wiilal yar oo dawladda waxba ka yaqaana ma lacagta la horreeyay dadka leeyahay hebel oo lacag qaado iska tag maxay tahay macnaha looga jeedo hanjabaado iyo dawlado kale ayaan loo soo kaxaysto la yiraahdo waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa oo waddanka xaaladdiisa halka gaadho waxay noqotay marxaladaha dhabta ah ee dawladnimadii Soomaaliya maanta ay dib ugu noqotay Jubbaland
taasaa lagu sameeyey doorashaan gallay markaan diidnay inaanu waxyaalaha badan ee qoorsiga iyo gudnimada diidno waxaa ani maanta sharafiya reer Jubbaland waxay ku qanacsan yihiin iyo waxay rabaan inaanu meel mariyo haddaan maanta lacag qaato oo saaka la yidhaha lacag 20 milyan Axmed oo qaado afkaygu hal qaaduu qaadaa soo ma wuxuu yidhi Nelson Mandela malqacad baa afkaygu qaadaya South Africa afkayga ma geli karta hal qaadaa afkaygu qaadaa macna ma jiro markaa loo gorgortami karo wax loogu sameyn karo waxaan ku yidhi dowladdii federaalka ahayd iyo ciddii soo direysay waraan isu nimaadna wada fadhiisano walba xuquuqda dastuurka uu siinaya ha qaato hadduu intaa qofku diida xagee la geenaya aniga qurba joog ma dibadda maana tagay laakiin waxaa laygu yidhi maraykanku waa meelaha dimuqraadiyadda laga soo barto waxaan la yaabanahay mas-uuliyiinteedu maraykanka waxay ka soo barteen axsana dimuqraadiya oo caalamka maanta ka jirta yaa hadda bartaan yaa macallin oo siyaasa farqaawo bilaa calaykum afarqeys dimuqraadiyadda laga baranayo maxay tahay ee maanta lanagu maamulaya waa shay qariib aad bay u tahay wax aad la garan kara maaha maxay timid markaa maanta markaani war doorashadaan leenahay sharcigaana siinaya aanu qabsano musharaxiintii hala keeno waxaa layidhi maya noo joogo sidan hala yeelo diyaaradaha ima waa la duqayn waa la qaban kan kulli laga soo tego waxay gaadhay markii dambe dhibaatadaad ogeydeen wasiir intii shalay dacwo lagu soo oogay oo la yidhi dacwadaasaa lagu haystaa oo loo yeelay oo la yidhi niyo dacwadaa Sheekh Xuseen Furaad ka tahay waxba laguguma laha raalliha waa kugu khaldanay oo ka soco la yidhi oo la yidhi waxaa sabab yidhi ruuxan ma samayn karo waa intuu isago afkiisa ka laha waxaani ma yeeli karo waddankan soo dhisay dib uga burburin karayo in la yidhaha ma eedaysan hata intii loo yeedho dowlado kale loo soo maray la yidhaha war ii xidha meel loo geliye kadibna maxay noqotay gobolkii in la yidhaha dib ha loo burburiyo waxaa la yidhi dowlad federaalaan nahay dowlad buuxda oo kana waa in hawadii lanoo soo celiyo qoladii aka way haysatay loo soo celiyaan maxay ku bilaabeen diyaarada xaggaa ma mari karto shacab ma qaadi karto waada wada Kismaayo iyo Dooble iyo wixii ka taagan maxay hadda ku daray gobolka Gado Galbaharey Baar Dheere Doolow luuq intaasoo diyaaradu u tegi jireen buurluuq hal diyaarad oo maanta tagtaa ma jirto maxaa loo joojiyey diyaarad ciidan wadda keliya tegi karaysa sababtoo danta dowladdu kuma jirto kuway soo qaadeen ay xareeyeen maamuladii bay ciidamo u isticmaaleen oy qaadeen oy xareeyeen oo ciidamadii deegaanadii ugu xorsanaa oo aad daraaf garaynaysay luuq iyo inta u dhaxaysa beled xaabo habeenbadhaad soconaysay iyo maanta intay ciidanku burburiyeen oy qaadeen oo isku direen bay maanta intay baxeen bay wixii ciidan haramcad iyo shabeel iyo dhibaato waxa la leeyahay ciidan hayay bay soo qaadeen waxa leeyahay dhulkaasaan xoreynayna yaa laga xoreynaya ma shabaab baa loo xoreynaya mise waa laga xoreynaya barakacayaasha ay cadar iyo sheegaysa dhibaatada maanta beled xaabo ka dhacaysa ee dhibaatada dadkaasi hooyadii iyo wiilkii iyo waxbarashadii iyo kulli laysla baaba'ay maanta aad garanaysaan meeshay gaadhay iyo waxa ay samaynayso iyo dadkii maanta maxay galabsadeen dhibaatada maxaa gaarsiiyey maxaa dadka loo burburiyey maxaa dadkan halkaa loo gaarsiinaya away dadkii xorta ahaa ee shabaab ka madax bannaanaa ee lagu soconayay maanta waxay noqotay halkaas inay maanta gaadhaano 100,000 oo qof oo beled xaawo deganaa intay barakacaan kulaylka aadoogeeda ee maarsa lagu jiro maanta qof waliba meesha jooga uuna garanay waa dhaxalka ay keentay dowladnimada Soomaaliya maanta ay meesha joogtaan oo ayna garanaynin maanta macna loo sameeyo waxaa ka sii ayaan daran waxaa la yidhi war ciidamadan warreer hebel iyo ruush goormay coloobeen buuri tile diyaaradaha maxay Turkiga goormay coloobeen oo Soomaali ciidanku u tababaraya ay noqday kuwa dadka lagu laynayo ama harab cadde ama shabeelde ama bahal kale ugu yeedhay waxaa la leeyahay ciidankii Turkigu soo tababaray ee loogu talagalay shabaab inay la dagaalamaan yaa waxay noqdeen kuwa maanta beled xaawo iyo doolow iyo intii la keenay shacabka lagu gubaaday waxaan odhan lahaa dowladda Soomaaliya wax lagu aamini karaa maanta ma jirteen war ilmaada reeyaal hawadiina bal cid kale oo noo haysa loo dhiibo ciidamadan
ciidamadan la soo tababarayana qadarayna lacagtaad bixinaysa nagada ay dhibaatada waddanka ku ah turkiyana waxaa tababaraysa joojiya shacabka Soomaaliya taariikh bay u geli doontaa Ethiopia waxaan leenahay saraakiishaada dhaqanka xun ee socota jooji war qof waliba ha naga daayo waxa la lagu hayo shacabka lagu qof waliba ha qaato eeda uu ku leeyahay meesha waxa ka jira waxaan leenahay reer Jubbaland dagaalkii shabaabka waa laba laabayna way wadayna dowladda federaalka waxaan leenahay dowlad federaal ee maxaa Abdullaahi Farmaajo madaxweynihii baa tahay kaalaan wada hadalay miisa wada fadhiisano dastuurku wuxuu ku siiyay qaado wuxuuna siiyana aan qaadan haddii intaa la waayo dee cidina kala xukuntaan raadinayna haddii la waayo dadku siyaalo kale u tashan doonaan haddii laayna ama dibad ha joogeen ama gubad ha joogeen waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan hay'adaha samafalka iyo dowladaha aan saaxiibkana ay kulligood ha loo gurmado dadkaas daawo dhibaatada ku haysato ee la barakiciyey ee dowladdoodii ay barakicinaysa ha loo gurmado waxaan rabaa inaan ugu baaqo ciidamada harabcadka iyo shabaabka iyo mukulaasha iyo isku jireen la sheegayo waxaad la dagaalamaysaan waa shacabkiinnii iyo ciidankii shalay aad defense ku wada jirteen war ilmadeerayaalo lama qaato amarku hadduu khaldan yahay arrintaa dib uga noqdo ninkii ku dhintoon ogow waxaad ku dhimatay adoo daalima oo soo duulay oo dhibaato ka shaqaynaya sida wax u socdaan si aan ku qanacsanahay maaha Soomaalidu reer baadiyaha markii la dagaalami jiray ama laba reer hadday wax isku qabsadaan geedka dad baa loo diraa waa laba nooc haddaad meesha wanaag ka rabtana cali iyo cumar iyo xasan baad u diraysaa haddaad walqoofi iyo inay qasnaato ka rabtana sugulle iyo warfaa iyo warsa baad u diraysaa waa la yaqaanaa wargeedka nabadda ee Soomaalidu iyo arrinta Somaliland iyo marka laga wada hadlayo dad ehel u ah loo diro dad ehel u ah oo garan karaya waxa la kala mudan yahay oo garan karaya dadka waxa ka dhaxeeya oo garan karaya waxa lagu bogsan karaa loo diro ha laga daayo qarindaarka yaa la oran lahaa hebelow ina Kenya waan ku geenayaa meeshaas way ka adagtahay arrinteeda arrintaas saasaan waxyaalaha dawladdu ka gaabisay way ku jirtaa waxaa intaas oo dhan ka sii daran waxaa laga hadlayaa doorasho 2020 doorashada 2020 guddi baarlamaan iyo golo fulin iyo hebel baa yiri inta midna wax kuma socon karaan waxay dawladdu u xubsiibanaysaa extension 3 sano iyo 2 sano iyo 4 sano sababtoo soo noqon la'aan way isku hubtaa marka si kale ku sii jiraan waa inay helaan maxay noqotay in la raadiyo sidii lagu waxayn lahaa waxaan rabaa inaan idiin sheego arrinta doorashooyinku lagu heshiiyaa ka horeysa waa inay isugu yimaadaan dowlad goboleedyada mas'uuliyadda ugu badan ee waddanka dadka saaran tahay maanta inta farmaajo uu ka taltalinaya iyo inta state waliba uu joogo state-yada ka badan waa talo Soomaaliyeed sharci ah heshiis siyaasadeed u baahan stakeholderska inay si wada dowlad goboleedyadu ugu horeeyaan iyo cidii kale madaxdii hore iyo cidii kale laga maarmo iyo axsaabta midowday iyo kulli markii la isku daro waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed in lagu gaaro anaa ila qofna maanta Soomaaliya waqtigan aan joogno 2020 baan marayna dictatorship waqtigiisii ma jiro qofna ma yeerin karay no qof maanta u yeerin kara shacabka Soomaaliyeed ma jiro oo kala anaas lahayn arrinta doorashooyinku waa riyo hebelow soo waxay guddi baan u saaray kala hala yeelo wax ka soconaya waxay u baahan tahay in la isu yimaado la wada hadlo laga heshiiyo markaas waxa la gaari karayaa waxa la doonayo wax laga qabto